dabaldegan ireejo oo kamida munaasabadaha dhaqamiga ee hanaanka gadhaha ee qoomiyada Oromada ayaa ah mid bulshada dhaqanka soo jireenka Ilaahay ay eebo oga mahadnaqdo nimcooyinkii naxariistii uu ku galaday sanadkii tagay iyo soo dhaweynta sanadka cusub sida uu inoo sharxayo abaagada Khadiir Cabdinuur oo kamida odayaal dhaqameedka hab dhaqameedkan soo jireenka ee hay'adda UNESCO aqoonsan tahay ee qoomiyada Oromada. taariikhda ireejohu waa taariikh soo jiraana oo soo abtirsantay qoomiyadaha adduunka oo dhanba qoomiyad walba dhaqan iyo hidde waxay leedahay maalin la xuso oo gaara ilaa 5,000 oo sannadood aqoonyahanada ugu badan ee kutubta qoraay saynisyahannada iyo kuwa maaragtay taariikhda mubarrixiinta la yidhaaho ilaa 5,000 oo sano inay soo jirtay bay sheegaan. ireejaha waxaa la xusaa ceelasha ceelal buu leeyahay haroo harsade meel la yidhaaho bari la tagi doono caawa lagu dheelman doono iyo maaragtay haro finfinneetan la yidhaaho ceelashaasaa la doogtagaa biyaha ilaahay nabad noogu soo bixiyey meel cagaaran bay ku taallaa sabadaa lagu ireejanayaa ayaa biyihii ilaahay loogu mahadnaqayaa oo inta doog cagaaran la qaato ayaa maaragtay biyaha la dhex gelin ilaahay noo daasiye oo noo wad biyahaas iyo roobka noo sameeyey biyuhu nabaddii bay ka mid yihiin noloshii bay xayaatada waa lambarka koowaad ee nolosha marka ilaaha dhulka biyo nooga soo daayay iyo samadaba doogana noo bixiyay baa la odhan oo halkaas la tagayaa odayaashu duca gaar ah bay leedahay sanadkiisa ilaahay nabad nagu gaarsiiyo mahadda baa la odhanayaa. 150 sano kadib xuskan lagu qabanaya magaalada Addis Ababa ee Oromadana u taqaana Finfinne ayaa soo jeetay ka soo qaybgalka ilaa iyo 6 milyan oo qof kuwaas oo ka soo galay magaalada Addis Ababa shanta wada ee dhinac walba ka soo gasha sida ay inoo xaqiijiyeen qaar kamid ah qabanqaabiyaasha munaasabadan ireeja. dhammaan wadooyinka taga fagaaraha weyn ee masqal ee bartamaha magaalada Addis Ababa ayaa xidhnaa ilaa iyo gelinkii dambe ee jimcihii shalay ahaa taasoo sababtay cidhiidhi inuu ku yimaado dhankii isku socodka gaadiidka dadkana ku qasabtay inay lugeeyaan mana ahayn mid kala joogsanaya qulqulka dadka ku sii jeeda fagaaraha masqal square 24 saac u dambeeyay dadka isugu soo baxay dabaaldegan ayaana badi ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka ay u leeyihiin qabaa'ilka kala gedisan ee qoomiyada Oromada iyadoo sidoo kalena ay soo bandhigayeen ciyaar dhaqameedkooda waana kuwan qaar kamid oo la TV-ga Universal dareenkooda ku aadan xuskan ireeja oo sanad walba la maamuso. wallahi horta yani Soomaaliya Oromoba hadaan ma aragtay aan kaaga waramo si qof imika dhasho kale iyay isku arkayaan loo ina farxad ma aragtay xuduud lahayn iyay faraxsan yihiin rag iyo dumarba waa sidaad arkaysid hatta wadaadda ma aragtay kama hadhin oo meeshan xiriirkan marka yani waa farxad aad u wanaagsan weeyaan waa farxad haddana ma aragtay haddana waa iid weeyaan iideeni weeyaan waa iidda ma aragtay shacabka Soomaaliya iyo shacabka Oromada oo mideynaysa weeyaan oo walaaltinimadoodii hore oo soo celinaysa oo ma aragtay oo haddana midnimadii oo adkeynaysa weeyaan saasaan leeyahay waa maanta waa faraxsanayn oo aad u faraxsanayn 150 kadib badda oo Oromada oo meesha isku imaade waa faraxsanayn ciidan hadda ka hor xageed ku sanadka hor xageed ku xustay sanadka hor waxaan ku xusay Bushoftu maanta Finfinne waa ku xustaysaa meesha Oromada magaalada Oromada ugu weyn aan maanta u jooga aan ku af Soomaaliya waxaan ku bartay wink saaxiibkay waxa ka jooga aan ka bartay intan oo dhan si fiican baad uga hadlaysaa ma rabtaa fariin maxaa u diraysaa dadka Ethiopia oo dhan farada waxa ugu dambe maanta waxa isku imaaday Soomaaliya waa imaaday afar waa imaaday id walba isku imaadano Ethiopian amala ireejaas kana maanta Oromo bismaaha hadda midnimo ku socoto midnimo waa ka yimid Adama idan oo yimid idkan Oromada kaliya ma idka ireeja la dhaafrmo kushitik idkan iskale kushitik dan iskale marka ina kushitik dan ana la idan ina la ino intaas oo raba adana waxa raba kushitik dan ina isku qabsatan ina si fiican walaalo noqotan ina hal hoogan noqotan intaas oo raba
dareenkaa ka waran maanta masee tahay farxaddaada maanta farxadaadii wallaahi kuma sheegi karo saaxiib boqol boqol waxaa noo suura gashay inaan soo gaarno goobta ay magaalada Addis Ababa ka degan yihiin qaar ka mid ah hogaamiyaal dhaqameedka deegaanka Oromiya waa odayadii dhaqanka ee Oromada ee loo yaqaanay Abagadha oo isaga kala yimid guud ahaanba deegaanada kala duwan ee markaas ay ka degan yihiin dalkan Itoobiya xuskan maalinta ciida Erecha waxa ay kaga duwan tahay xusaskii ka horeeyay tan iyadoo 150 sano kadib lagu qabanayo magaalada Addis Ababa ama Finfinne oo ay u ahayd haradii Finfinne 150 sano kadib in lagu qabto ciida Erecha Irreecha jechuun irreessa jechaadha. Irreessa jechuun irree waaqa kadhannaa jechaadha. Kanaaf irreessi lama tokko gaafa idhaha horta waa cudud iyo xubin waa maalintii midnimada iyo walaalnimada irreechuhu 2 jeer buu dhacaa mar waxa weeyaan marka ay maaragtay roob la'aanta iyo abaarta iyo qaxtiga uu dhaco meel tullu leeyahay buurta leeyahay baa lagu duceeyaa oo loogu soo irreecheeyaa sidii roob loo baryo iyo qaxtiga iyo nabadgelyo loo baryo midna waa mid farxad iyo maaragtay mahadnaq ah oo waa tan harada maanta hara Finfinne iyo hore harsade iyo meelahaas xarumaha ugu waaweyn lagu irreecheynayay marka waa xilliga roobka mugdiga uu dhaco iyo xilliga maaragtay roob la'aanta iyo wuxuu kala leeyahay abaarta iyo roob buu kala leeyahay kuma bekamuti gadaan arraaquni kan arra irreeyfanne khuni reejahani waa irreeche maaragtay ama ciidani waa ciid maanta reereen iyo guul noo ah ninkii la odhan jiray Melilakh ayaa dadka naga ka kaxeeyay halkan oo ay ku ciidi jireen sanad guurada ay halkan ku samayn jireen irreechahan oo kale ama ciidan oo kale marka ciidani ciid ciyaar aan ku soo maanta aan ku gaadhnay maaha annaga abbayaashana iyo annagu halgan dheer oo maaragtay naf iyo maalba aan ku soo weynay ayaan u soo dagaalay xornimadan maanta aan ku ciideyno madaxda dawlad deegaanada dalka ayaa diray dhambaalla hambalyo oo ku aadan xuska Erecha iyadoo qaarkoodna ay ka soo qaybgaleen iyagoo horkacayo wafti 100 gaadhaya munaasabadan dabaaldega Erecha oo ka dhacaysa magaalada Addis Ababa maanta markii ugu horeysay ayaa u qabsoontay si nabadgelyo iyadoo ammaanka magaaladana ay si mugle u sugayeen ciidamada federal booliska berri oo axad ahna waxa la tagi doonaa harada Harsedi ee magaalada Dabrized oo sidoo kalena loo yaqaano Bishofto oo 40 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Addis Ababa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga federaalka Itoobiya Ismaaciil Ibraahim Burgabo Universal TV Addis Ababa